bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada wararkooda ugu waaweyn aan idiin hayna waxaa ka mid ah turkiga oo dhadhexaadin u galay khilaafka doorashada soomaaliya erdogan oo bilaabay inuu xaliyo madaxda dowladda federaalka iyo mucaaradka qodobadaas oo faahfaahsanayaad wararkeena ku daawo doontaan balse saaxiibayaal waxaa idinka codsanayaa inaad sabskraibe sartaan janalka si aad u heshaan wararkay macluumaadka halkan aan soo gelino mahadsanidin dhammaantiinba aynu ku bilaawno. waxaa sii xoogeysanaya dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayay in xal lagu gaaro muranka siyaasadeed ee khilaafka doorashooyinka soomaaliya iyadoo dowladda turkiga ay qaaday tallaabooyin muuqda oo ay ku dhexdhexaadinayso dowladda federaalka soomaaliya ee mucaaradka siyaasadeed ee kasoo horjeeda habka loo wajahayo doorashada dalka. warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in dowladda turkiga ay ankara ay ku martiqaaday xubno ka tirsan mucaaradka soomaaliyeed halka siyaasiyiin kale ay wakiilo u direen kulamada socda. dowladda turkiga oo muddo dheer saaxiibo la ahayd soomaaliya islamarkaana xiriir wanaagsana leh dhinacyada siyaasadda ee dalka ayaa dadaal xoogan waxay ugu jirtaa sidii loo abuuri lahaa jawi wada hadal is-afgarad horseeda. ankara ayaa aaminsan in xal waara laga gaari karo wadahadal toos ah iyadoo labada dhinac lagu qancinayo inay ka tanaasulaan mowqiifyada adag ee sii hurin kara khilaafka siyaasadeed. ili xoogaal ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka ee xubno ka tirsan mucaaradka ay muujiyaan diyaargarowga ku aadan ka qaybgalka gusha uu turkiga fudiyey. xiisada siyaasadeed ee muqdisho. magaalada muqdisho waxaa ka socda abaabul siyaasadeed iyo mid amni oo ay kala wadaan dowladda federaalka soomaaliya iyo kooxda mucaaradka, balse tillaabadan oo si weyn ay ugu cariirsiisay dowladda turkiga ayaa markan qaadaysa tillaabooyin culus ay ku doonayso inay kusoo afjirto isjijiidkan muranka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda. saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay xubno ka socda wasaaradda arrimaha dibadda iyo istirdoonka turkiga ayaa ku casuumay dalkooda oo la kulmay wakiilo ka socda qaar ka mid a musharaxiinta madaxtinimada ee soomaaliya kuwaasoo ay kala hadashay kow in xasan sheekh ay kala heshiiyaan doorashooyinka ayna diyaar ay u tahay ankara inay dhexdhexaadiso dhinacyada. labo inay doonayaan in laga fogaado gacanka hadal ayna dhankooda sheegeen inay ka walwalsan yihiin xaaladda dalka oo lagu kabay maalgelintooda oo ay sheegeen in waqti dheer ay ugu talagaleen aysan ku xirnayn joogid iyo bixidda xukunka xasan sheekh maxamuud. intii ay wadahadalladan socdeen turkiga ayaa kala qarinayay oo ma jirin kulamo wadar ah oo ay la qaateen darafyada kala duwan ee mucaaradka inkastoo kulamo gaargaar ay la qaadanayeen wakiilada ay mucaaradka ay u direen magaalada ankara halkaas oo kulamo xasaasi ay ka dhaceen. ankara dadaalkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo xubnaha beesha caalamka cadaadiskooda ay kordhiyeen markan dowladda turkiga waxay qaadanaysaa door ku aadan si ay u dhexdhexaadiso mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh. dowladda federaalka soomaaliya ayaa xoojisay dhaqaaqyada amniga ee caasimadda iyadoo la kordhiyey ciidamo lagu daadiyey goobaha muhiimka ah laguna sameeyey qorshayaal lagu hortagayo khilaaf siyaasadeed ama banaanbaxay laga cabsi qabo inay rabshado ay isku bedelaan kuwaas ay ku dhawaaqeen xubnaha mucaaradka iyagoo sii kordhinaya kulamada iyo abaabulka taageerayaashooda iyagoo ku baaqiyay in la sameeyo hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay. hogaamiyaasha mucaaradka ayaa aaminsan in nidaamka hadda socda uusan haysan wadatashi qaran oo ku filan taasoo ay ku andacoonayaan inay halis gelin karto xasiloonida siyaasadeed ee dalka. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya mucaaradku ay qorsheynayaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xoogan marka la gaaro ciidda kadib kuwaasoo ay ku jiraan shirar waaweyn iyo abaabul lagu xoojinayo cadaadiska siyaasadeed ee lagu saarayo dowladda federaalka. loolanka siyaasadeed ee xasan sheekh iyo mucaaradka. khilaafka u dhexeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxda mucaaradka ayaa galay marxalad cusub oo siyaasadeed. mucaaradka ayaa ku doodaya in loo baahan yahay heshiis qaran oo ku saabsan doorashada halka dowladda federaalka ay ku adkaysanayso gedi socodka hadda socda uu yahay mid sharci ah oo dastuurka waafaqsan. falanqayaal siyaasadeed ayaa sheegaya in labada dhinac ay hadda ku jiraan marxalad awood lagu muujinayo iyadoo dowladdu ay isku dayeyso inay ilaaliso maamulka iyo amniga dalka halka mucaaradkuna ay doonayaan inay muujiyaan awooddooda siyaasadeed iyo taageerada ay bulshada dhexdooda ay ku leeyihiin. arrintan ayaa abuurtay jawi siyaasadeed oo kacsan kaasoo saameyn ku yeelan kara qorshooyinka doorashooyinka iyo mustaqbalka dowladnimada ee soomaaliya. haddii aan si degdeg ah loo gaarin heshiis siyaasadeed waxaa jira cabsi ah in khilaafku uu sii xoogeysto islamarkaana uu saameyn ballaaran oo ku yeesho dhinacyo badan. waxaana suuragal ah kow dib u dhaca ku yimaada jadwalka doorashooyinka dowladdu ay qorshaysay. labo inay yaraato kalsoonida shacabka hay-adaha dowladda. saddex in la adkeeyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalka. afar in saameyn taban ay ka dhacdo maalgashiga iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda dalka. shan
in kooxda amni darrada faafiya ay ka faa'iidaystaan khilaafaadka siyaasadeed ee xilligan ka jira dalka. sidoo kale xaalad kasta oo horseedi karta isku dhac siyaasadeed ama banaanbaxyo rabshado wata waxay culays dheeraada saari kartaa amniga muqdisho iyo guud ahaan dalka. caqabadaha horyaala wadahadallada inkastoo uu turkiga uu dadaal xoogan ku bixinayo dhexdhexaadinta, haddana waxaa jira caqabado waaweyn oo hortaagan heshiis degdeg ah. caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah kalsooni darro ka dhex jirta dhinacyada siyaasadda, khilaafka ku saabsan nooca doorashada iyo maamulka geedi socodka, tartanka siyaasadeed ee la xiriira doorashooyinka socda, aragtiyo kala duwan oo laga qabo awood qaybsiga siyaasadeed, saameynta ay ku leeyihiin daneeyayaasha gudaha iyo kuwa dibadda. falanqeeyaal badan ayaa qaba in heshiis dhab ah laga gaari karo oo keliya marka la helo tanaasul siyaasadeed iyo damaanad qaadiyo labada dhinac ay ku qanacsan yihiin. cadaadiska beesha caalamka ayaa si dhow ula socota xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. dowladda Turkiga, Mareykanka, Midowga Yurub, qaramada midoobay iyo dalal kale oo daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inay ku boorinayaan dhinacyada inay miiska wadahadalka ay ku xaliyaan khilaafaadkooda. diblomaasiyiintan caalamiga ayaa si gaar ugu walaacsan in khilaafka siyaasadeed uu saameyn ku yeesho dagaalka lagula jiro maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo dadaalada dib u dhiska hay'adaha dowladda. wararka soo baxaya ilo diblomaasiyad ayaa muujinaya in beesha caalamku aysan doonayn in Soomaaliya ay gasho marxalad cusub oo qallaas siyaasadeed, taasoo beddelkeeda ay taageersan yihiin heshiis loo dhan yahay oo lagu gaaro wadahadal isu tanaasul. doorka cusub ee Turkiga ee dhexdhexaadinta khilaafka doorashada Soomaaliya ayaa noqon kara fursad muhiim ah oo lagu yareeyo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka. si kastaba ha ahaatee, guushan dadaalka siyaasadeed waxay ku xirnaan doontaa heerka ay dowladda federaalka iyo mucaaradka ugu diyaar garoobaan wadahadal dhab ah iyo isu tanaasul siyaasadeed, iyadoo Muqdisho ay ka socdaan abaabulo siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqyo militari. indhaha shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa beesha caalamka oo ay hadda ku wajahan yihiin Ankara, halkaas oo laga filayo inay ka soo baxaan natiijooyin go'aamin kara jihada siyaasadeed ee Soomaaliya bilaha soo socda. mucaaradkuna waxay isku diyaarinayaan inay qaadaan guluf dagaal bacda al-ciid, laakiin Ankara ayaa dadaal badan ku bixinaysa in mar kale miiska wadahadalka ay isugu keento dowladda uu hogaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinacyada siyaasiyiinta ee mucaaradka. waxaa la arki doonaa kulamadan Ankara ay wado oo dowladda federaalka iyo mucaaradku ay doonayso in mar kale miiska wadahadalka isugu keento, halka uu ku dambeyn doono in natiijooyinka ka soo bixi doona. waxaa la arki doonaa sida ay wax u dhici doonaan maalmaha soo aadan. dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhaxbixin waa dowladda walaalaha ee Turkida. Soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal ana waa nagala dhaxaysaa oo ilaa qarnigii 14aad iyo wixii ka dambeeyay iyo wax lamida iyo waxaa kaloo nagala dhaxeeya Turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufaheeda gaarka. Turkiya waa dal caalamka na garab istaagay ka mid yihiin, laakiin waxa ay macnaha gaarka noogu leeyihiin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen. maalintii dadkeena majaacada ee haysay ee baahida haysay ee macluusha ay jirtayna waa noo yimaadeen. madaxweynaha hadda dalka Turkiga ka tagay ra'iisul wasaare ah iyo caa'iladiisii iyo golihiisa wasiirada iyo ay maxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa oo dhan ayaa Soomaaliya yimid, ayadoo waagaa Soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay. gabdhaha ajnabiga ah ee Soomaalida aan ahayn ee hay'adaha samafalka u shaqeeya looma ogoleen magaalada Muqdisho inay yimaadaan. markii uu muxuu ahaa President Erdogan oo markaas ra'iisul wasaare ah iyo familigiisa ay yimaadeen oo xeriyihii barakacayaasha inta tageen carruurta Soomaaliyeed ay kor u soo xambaareen soo qaadeen, oo kuwa jidka dhinaciisa ku ciyaaraya inta u degta madaxweynuhu ag fadhiisto dhahay xaalkooda ka warsada, oo wixii ay baahida iyo dhibaatooyinka ay sheegeen in badan oo kamid uu ka jawaabay. waxay ahayd dowladda kaliya ee mucaawanada dadka Soomaaliyeed ay siinaysay, dowladda Soomaaliyeed u dhiibaysay oo dheysay dadkiina adiga ka taqaanaan meesha baahida ka jirta adiga ka taqaanaan waa tanaan qabta. waa dalka kaliya ee maraakiib isdaba socoto 20,000 oo tan isdaba socoto mar walba u dhiibayay dowladda Soomaaliya. wasaaradda arrimaha gudaha inta u dhiibay u qaybiya dadka adiga ka garanaysaan sida loogu qaybiyo sida u kala duruufo badan yihiin. waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget support ugu horeeyay dadka ugu horeeyay oo bangigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag ku soo shubay ahayn oo yiraahdo socda waxaysta aaminaad qaata bangigeena dhaxal lacag geeyay ahayn lacag ku shuba. maxaa
waxaan ku irahdaa markii ammaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamkao dhanna uu noo soo gurmaday ayagana noo soo gurmaday si gaara noogu soo gurmado xerye inta dalka gudihiis ka dhisay askarteenna ku tababaray saraakiisheenna qaaday maxaan ku irahdaay ciidankeeda inta gudaha ku tababaray haddana qalabeeyey qalab casri ah weli siiyey ayadoo berigaas weliba cunaqabatayna saaran dalka qalab lama sii kala la dhahayo saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryarna dalkooda ayay ka yimaadeen intooda badan dalal kale oo walaala oo aanan saaxiiba oo aanan inkirin way jiraan waa dal maalintii aan u baahnayn noo yimiday dhibaatada mar kasta jirta dekedaan maamulkeeda dhib ku qabnaa waa idinla maamuleen airboortkan dhib ku qabnaa waa idin qabanayna guud ahaan daawadayaal wararka aad ka daawaneyseen janalka waa naga intaas ammaan allah